marka inaan ku aad u saxsanay bay tirinay dawladda qaybta Department of Education inay waalidiinta la tashado la socodsiiyo waa arrin aad u muhiimsan annaka lafteedu waxaan aaminsan inaan nahay dawladooyinka ka saabsan ama taa xamilsan yihiin in annaka lafteedu aad muhiim u tahay in waalidiinta la shaqeeyaan waalidiinta marka la encourage gareeyo la support gareeyo boqolkiiba waa muhiim. However, the Department for Education is really clear that parents don't have the right to veto what is being taught in schools. They don't have the right to stop certain things being taught. marka waxay tiri laakiin anoo taan ugu yiraahdo laakiin waxaan ku darayaa inay dawladdu si gaar ah u tiri inaana waalidiintu ana ka saari karin ama ka joojin karin caruurtooda arrimaha la yiri u dhiga marka arrimaha jirto la yiri ilaa ma qasban calaykan caruurta loo dhigo weeyeen arrimaha ma ka saari karaan ma ka saari karaan qasab inay caruurtu dhigtaan weeyeen. So schools and the local authority have to act in accordance with the Equality Act. In the Equality Act, it states very clearly that sexuality and religion are both protected characteristics, and they are both equally important. marka hadda la eego marka iskuulku inuu ku socdo iskuuliyaasha ku socdo wax la yiraahdo Equalities Act oo sharci ku saabsan dadka adigu in la ilaaliyo marka dadka la ilaalinayo waa la sheegay waa sagaal qaybood weyn laakiin dadka la ilaalinayo waxay soo halqaaday sexuality yani qofku doonayo inuu raaco oo hamad u haysto ama jecel yahay ama gabar ama nin ama inay loo daayo yani xaqooda tahay nooca jecel yihiin iyo diintaba marka labadaas waxay haystaan in xaq in la siiyo. And so that is why I talk so much about equality and respect. It's our legal duty as a local authority and schools to teach equality and respect to our children so that they grow up in such a way. And just as I've said before, that we can't tolerate racism in our schools in the same way we can't tolerate homophobia. marka waxay tiri annako taa marka waxa fahamsadaan markii nahay local authority anahay duty ka qasab ay nagu tahay inaan marka aan ilaalino qofka ina yani qowmiyadka la cunsurina dhibaato loo la gaarsiinin oo kelmadan equality xaq inuu haysto iyo value inuu qofka respect la siiyo ina labada arrimood aad ugu dadaalo sidaan u ogolaan qofka racist lagu sameyn lahaa ama cunsurnimo lagu sameyn lahaa. But I want to work with parents as much as I possibly can, and I really want to know your concerns because it's so important that we find a way through this together and we work together. marka waxay tiri oo waxaan marka anigu doonayna waalidiinta aad ula shaqeeyo aan isla hadalno aan the parents aan is support garano waa arrinta waa arrin culus aan isla shaqeeyno inaan helno hab ama farsamo lagu haboon aan ku dhameeyo.